gargaarkan raashinka oo maanta mar kale soo gaaray degmada Xudur ee xarunta gobolka Boqol oo diyaaradaha ay keeneen waxa ay gaarayaan 49 tan waxaana lagu wareejiyay agaasimaha guud ee madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin xubnaha maamulka gobolka Boqol iyo kan degmada Xudur oo gargaarka raashinka halkan markii lagu dajiyay lagu wareejiyay gargaarkan ayaa ah kii ugu horeeyay oo ka yimaada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka iyo tan Koonfur Galbeed oo halkan ay soo gaarsiiyeen raashinkaas oo la sheegay in ay baxsadeen dad ku nool dalka dibadiisa oo ugu talagaleen bulshada xaaladda bani'aadanimo haysata ee ku nool magaalada Xudur ee xarunta gobolka Boqol kusimaha gudoomiyaha degmada Xudur ahna gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda maamulka gobolka Boqol ayaa waxa ay ka warbixiyeen raashinka gargaarka ah iyo sida ay ugu talagaleen inay u qaybiyaan raashinka Xudur hadeeri afartan isagaal tangu todoba diyaar la gashay insha Allah raashinkan maadaama gashay hadimay laakiin isla geenimada kooyaha maylana dadkii raashinkan hadibidi ilaahay idin shay inuu wali rajaayana waana weela doonay dadkii lanka tala galay geysii doon oo masaakinta lanka tala galay in dawladda iyo boosta iyo ogoonta ilankii waa badabshay batas dansanas yaasi doon hadii ilaahay era onaanu deeri dad oo diaspora dad ganacsato iyo wasaaradda oo maareyntii masiibooyinka antii oo raashinkaasay hadeersidii gobolka Boqol mayba mahadnagaan mahadgaaran jeediyana dadka kale oo ganacsatada iyo dadka diaspora mayba insii jeediyana sidii oo lahanka sii gurmadalay umada gargaarka kan oo hadiisan aragahaytan wayba ku sii horeeyay dhowr gargaar oo hana geysiyeen daruuro iyo salaad jeeri agaasimaha guud ee madaxtooyada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdullaahi Cali Watiin ayaa waxa uu sharaxayaa inta tan ee halkan maanta la soo gaarsiiyay gargaarka ah iyo waliba waxa uu isugu jiro raashinka maanta diyaaradaha ay keeneen magaalada Xudur marka raashinkan marka ma hina diirsimay dawladda federaalka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka wasiirka Khadiija Maxamed Diiriye iyo wasiirka mayba qorsheynta wasiirka oo raayis usuun maareynta masiibooyinka Koonfur Galbeed Soomaaliya ya ila mayba isteemayni la hadalay mayba waqtigaas mayba hani la hadalaayaan si mayba hubsadan in raashinka mayba hadeeri degmo Xudur hadeeri marka eedeeda mayba ka faraxsan ka madaxtooyahan una wakiilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ma cadeeyna mayba in raashinka mayba inta kala wareegni waan insha Allah qaybtii mayba wajiga kuwad wajiga ma la wareegni insha Allah وجودك كلام ما يبغى ونديار جرون كجرن وأنا شان وأنا الوري قدومنا راشين كمان نسكجر هم بور يو بريس السكر السليد التمر ما يبغى يعني نسكجر إن شاء الله مرة جاي وأنت شيء ما يبغى فرتن يوم ما يبغى سجال تن إن شاء الله يوم سنة ما يبغى يا رجال إن شاء الله horey ayaa dad ganacsatada sidan oo kale oo ka jawaabay baaqi madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen halkan gargaar u keenay tan waxay qayb ka tahay gargaar dhanka dawladda ka yimid عدن حسني يونيفرسال TV Xudur Boqol